السلام عليكم صاحبي السودي وهذا ميل walba dawladda caalada ka joogtaan halkani waa taariikh show oo alaba aydu kala socotaan muuqaal ku saabsan taariikhda dagaalkii Badr markii uu dhacay sanadii labaad ee hijriyada laguna gumaaday in badan oo kamid ah madaxweyntii Quraysh ugaasidii Quraysh Abu Jahl Ubay ibn Khalaf ugaasiye badan oo kamid ahaa ugaasidii Quraysh markii lagu dilay dagaalka asaga ee Badr ay ku dhamaadeen oo ay noqotay wax ay dunida la yaabtay in 312 wiil oo saxaabadii Nabi Maxamed socotay ah ay dhegta dhiiga u dareen ciidan ku gaarayo kaas oo ay hogaaminayaan hogaamiyaashii militariga ee Quraysh waagaas hogaaminayay oo gaar ahaan ugu caansanaa ninkii la oran jiray Abu Jahl iyo nimankii kale madaxweynta ahaa dagaalka asaga markuu dhacay dadkii aadka uga xanuunsaday ee qaadan waayay waxa meesha ka dhacay wax macquul in yihiin u arkay waxa kamid ah nin la yiraahdo Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn al-Ashraf wuxuu ahaa asalkiisii nin Carbeed oo qabiilka Nabhaan la yiraahdo tirsan qabiilkii Xaatim al-Ta'i oo ka soo jeeday reer Bani Tayl ee Carbeed caanka ahaa ayuu ka soo jeedaa ninkan Ka'b ibn al-Ashraf laakiin hooyadiis ayaa waxa ay tahay yahuud marka wuxuu ahaa nin yahuudiya xaggana carab ah sida arinta ayada ay ku dhacday oo yahuud uu ku noqday hadaan dib ugu laaban ninkan Ka'b ibn al-Ashraf aabihii Ashraf kan ayaa wuxuu galay xilligii hore dhiig ayuu galay oo nin buu dilay deedna qabiilkiisii Nabhaan waa uu ka soo cararay oo waxa uu soo aaday Madiina Munawwara waxana uu yimiday yahuudan markii uu yimiday waxa uu weydiistay magangeliyo maadaama uu yahay nin dhiig soo galay tolkiina aanu ku laaba kareynin waxa uu sameeyay qabiilkii uu isaga baxay nimankan yahuudaha Madiina degan buu u yimiday kadibna waxa uu weydiistay magangeliyo inay siiyaan sidaan uu kula noolaado ayagana uu ka mid noqdo diintoodana uu qaato sida ay ku soo dhaweeyeen nimankii reer Bani Nadir odagii Ashraf ahaa oo gacan ku dhiiglaha ahaa deedna way u guuriyeen waxaana ay u guuriyeen ugaasidooda ugaas kamida gabadhiis ayay siiyeen gabadhiina waxay dhashay ninka la yiraahdo Ka'b ibn al-Ashraf odagii wuu dhintay wuu halaagsamay wiilkii Ka'b ahaa ayaa weynaaday hogaamiye ayuu noqday oo dhaxdooda dhinacaana oo ganacsada ayuu noqday qalcado dhan ayayna siiyeen oo dhul dhan oo difaaciye oo qalcado ah ayay siiyeen oo halka ayuu deganaa markii uu Nabi sallallahu iyo saxaabadiisii ay magaalada Madiina ay yimaadeen dagaalka markii uu dhacay oo ay ku halaagsameen nimankii madaxweynta Quraysh Badr Ka'b uu qaadan waayay Ka'bkani wuxuu ahaa nin badan oo aftahana oo gabiya ah oo shaacir banaanka ku dhacay laga daba hadlin ayuu ahaa deedna saaxiibayaal uu qaadan waayay wixii dhacay Makka ayuu aaday Madiina ka tagay asaga iyo rasuulkana waxa u dhaxeeyo nabigu sallallahu waa kii markii magaalada Madiina yimiday waa kii dadkii deganaayo dhan heshiis siiyay waa kii warqad la qoray warqadaati waa tii lagu qoray in magaalada la wada difaacdo cadowgii magaalada kusoo duulana dhan lagaga soo wada jeesto dadka magaalada degan ay nabadgelyo ku wada noolaadaan yahuudooda iyo muslimiintooda marka Ka'b ibn al-Ashraf waxa uu ku jira balanta ayada dadka ku jira ayuu ku jira oo kamid yahay ninkan Ka'b marka arintii Badr markii dhacday uu qaadan waayay deedna cadaawad uu qabo uu baxay Makka ayuu tagay markii uu Makka tagay wuxuu arkay Makka laga wada ooynayo guri walba ay tacsidii baroort ay taalo ayuu arkay deedna halka ayuu gabayo badan tiriyay oo maartay ugu calacalay ragii lagu laayay meeshii Badr lagu laayay muslimiintu ay laayeen marka arintaas ay dhacday oo gabayo badan tiriyay Xasaab ibn Thabit oo ahaa shaacirkii nabiga ama gabayagii nabiga ayaa arintii gaadhay deedna halka ayuu Madiina ayuu ka soo diray gabayo aad u culus oo ku caayayo nimankii dadkii soo dhaweeyay ninkan Ka'b ibn al-Ashraf afka xun dadkii Makka ku soo dhaweeyay gabayo gantaale ah oo aan loo adkeysan karin ayuu Xasan u soo diray oo daawade arab dhaxdeeda waxa caan ah gabagu wuxuu ku jiraa maalinta ayada xilliga maanta ay sida maanta warbaahinta ama telefishinadu ay yihiin ayaa gabagu ka ahaa waaga asaga arabta dhaxdooda oo gabagu waa saameyn qoyskii gabay laga soo qaadana arabi wiligeed ayay gabiga akhri doontaa oo wuxuu noqon doonaa wax caana sida daraadeed hadduu gabigu caay yahay cid u dul qaadan kartaa ma jirto gabiga Xasan markuu magaalada Makka yimiday kaasoo ku aadan cidii ninkan soo dhaweysay oo Makka ku soo dhaweysay way u adkeysan waayeen dadkii hayay oo martisoore iyo guryahooda u deganaa gabayadii Xasan way aqbali waayeen wayna iska ceeriyeen ninkii Ka'b ibn al-Ashraf guriga kale uu tagay haddana Xasan ayaa wuxuu soo diray gabayo kale oo haddana gantaal ah oo loo adkeysan karin haddana ninkii way iska ceeriyeen nimankii kale ilaa magaaladii Makka ay cariiri ku noqotay oo isaga baxay Ka'b ibn al-Ashraf magaaladii deedna wuxuu aaday meesha la yiraahdo Taif oo 100 kilomitir u jirta magaalada Makka halkii markuu tagay reer Taif oo dhan waxay ka warqabaan gabayadii xanuunka badnaa ee Xasan uu soo jawaabay dadkii Makka ku soo dhaweeyay ninkan deedna ayagoo ka baqayeen Xasan gabayo soo tiriyo ayay soo ceeriyeen reer Taif ninkii Ka'b ibn al-Ashraf meel qaada markii uu waayay ayaa wuxuu ku soo laabtay Madiino iyo halkii markii hore deganaa qalcadiisa ku til ayuu ku soo laabtay oo yahuudi reer Bani Nadir oo ka tirsanaa ayuu ku soo laabtay halkii markii uu yimid edeb ma usan yeelan afkiisii ayuu halkii ka sii waday daradiisii iyo caaydi uu caynayay markana wuxuu bilaabay inuu dumarkii muslimiinta uu caayo oo maartay uu halkaay ku halqabsi u ka dhigto oo gabigiisa ugu soo daro arinta ayada muslimiintu ay qaadi waayeen gaar ahaan nabigu sallallahu alayhi wasallam way u cuntami waysay ilaa nabigu sallallahu alayhi wasallam oo yiri ilaahayow igaga filaw ibn al-Ashraf ninkan dhibka badan maalin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada ka dhex istaagay wuxuu yiri yaa Ka'b ibn al-Ashraf igaga filaanayo faqad aadallahu wa rasuuluhu allah rasuulkiisa buu dhiban ninkani yaa iga qabanayo oo ninkan iga aamusanayo saxaabi la yiraahdo Maxamed ibn Maslama
ayaa wuxuu yiri yaa rasuulallaahi atuhibbu an aqtulah rasuulka Allah ma jeceshaa ninkan inaan kaaga raaxeeyo inaan dilo ma jeceshaa rasuulkan wuxuu ku jawaabay haa waan jeclaa inaad disho ninka asaga hadaba ana sameeyay yiri maxamed ibn maslama xilligii jaahiliga intan islaamku imaanin ka hor saaxiib ayuu la ahaa ninkan kacb ibn ashraf oo niman is yaqaanaan oo is garanayaan deedna maxamed ibn maslama waayahay rasuulka Allah wana dilay ninkan oo ka takhalusaya maxamed maslama door maalin ayuu qaatay oo fikiraya wixii uu sameey lahaa deedna waxa uu diyaarsaday qorse cajiiba rasuulka ayaa u yimid wuxuu rasuul Allah balantan ka qaad waan oofinaya ninkan waan dilaya laakiin waxaan u baahanahay inaad i fasaxdo inaan hadlo sababta wax laga yaabaa ninkan anoo isaga dhigayo inaan niman adiga ku rumaynin inaan isaga dhigaan aan doonaya sida daraadeed wax laga yaabaa ereyada qaar oo qalafsan inaan ku hadlo marka waa inaad i fasaxdaa rasuulka Allah ereyadaas rasuulku wuxuu yiri qul waad u fasaxan tahay ereyadaas inaad tiraado ninka asaga iga raaxeeyo ka takhalus maxamed maslama waxa uu u yimid dhowr saxaabo 5 saxaabo oo ka mid yahay nin la yiraahdo Abu Naila sababta uu soo darsaday maxamed maslama waxay tahay ragga la rabo inay ka takhalusaan Kacb ibn Ashraf Abu Naila waxa ay walaalo yihiin ninkan la yiraahdo Kacb ibn Ashraf xagee walaalo ka yihiin dhanka nuugmada oo isku hooyo ayay nuugeen oo halnaas ayay wada nuugeen Kacb ibn Ashraf iyo Abu Naila sida daraadeed ayuu maxamed maslama wuxuu ku soo darsaday qorshihiisa Abu Naila inuu kala mid noqdo ragga wax ka dilaya ninkan Kacb ibn Ashraf Kacb ibn Ashraf waxa uu degan yahay reer Bani Nadir halkay ka degan yihiin magaalada Madiino halkaas ayaana qalcadiisa ku taala waana meel dheeldheel aan lagu gali karin oo lagu soo dili karin ninkan ilaa in xeelad loo taga mooyaan maxamed maslama maadaama ay xilliga jaahiliga saaxiibaha isna yaqiineen waa uu soo baxay waxa uu yimid Kacb ibn Ashraf Abu Nailana uu soo watay oo ay xagga nuugmada ay walaala ka yihiin Kacb si uu soo uga shakin waa uu yimid wuxuu yiri war Kacb oo saa tahay war waa la iswaay maalmaha waa la kala mashquulay warays dheer kadib wuxuu yiri niyahow xaajaban kugu nimiday ninkii maxamed ahaa xooluuna weydiistay waana nagu dhibay xoolaha asaga waa hadalkii uu lahaa rasuulka Allah iyo fasax aan ariya qaar aan oo qalafsan aan ku dhawaaqay oo loo fasaxay wuxuu yiri ninkan maxamed xooluuna weydiistay zakuna weydiiyay waana nagu dhibay xoolaha asaga deedna Kacb ibn Ashraf wuxuu yiri wallahi ya isgaaraba waad daali doontaan wariniyo soo waxaan kugu wada waxaan kaga rabo maalin walba oo waxdiin weydiinayo adinka daali doono ya isgaaraba haddaad sheeganaysan deedna wuxuu yiri ninka asaga xooluuna weydiistay waana nagu dhibay waxaan siinana ma hayno oo xooli way naga dhamaadeen marka waxaan kugu nimidaniyo maadaama nid ganacsada oo weyn oo tahay waa inaad xoolana ama hayso ayaan doonaynaa rahanna aan ku siino oo waxyaabaha rahan oo si haysanaysa inta xoolaha kaaga keenayno inaan ku siino xoolana aadna deemiso maadaama dad saaxiiba xilliga aanu ahayno isku fiican ninkan uu yahay walaalka Abu Naila sidaas ayaan kugu nimidniyo mana tiidnin ugaas oo inta loo yimaado agtiisa wax laga waayin karayo deedna waxa uu yiri Kacb ibn Ashraf wallahi niman yahow aad bay xanuujinaysaa waxaan ku dhacay ninkan waan ogaa inuu san khayr soo wadin nabiga ayuu wuxuu ka sheegay raba ka sheegay kadibna wuxuu yiri haye waa diyaar waan idin siinayaaye maxaad rahan ii siinaysan deedna Abu Naila ayaa wuxuu yiri wax weydiisado wixii aad weydiisato ayaan ku siinaynaa kadibna nin aad u xun ayuu ahaa yahuudana adduunka bini'aadamka ugu xumi waa yahuud sida daraadeed adduunka dadka islaama dadka ugu yari waa yahuud oo magaalada Madiina inta nabiga sallallahu alayhi wasallam 10 sano jooga inta ka islaamtay faraq ku tiris waay halka ay nasaarada iyo kiristaanka ka islaameen boqolaal iyo kumanaan kun marka wuxuu yiri dumarkiina ayaad rahan iyo siinaysan bal fiiri aqal xumadiisa iyo khubsigiisa ninkan waa ay ninka wax la cuno kugu bedelaya xaskiisa qaaliga ah deedna waxa uu yiri maxamed muslim wuxuu yiri ma dumarkan ayaan rahan ku siinayna adoo ajmal arab ninka ugu qurux badan baa tahay nin shaacir oo maal baa tahay gabar kasto carbeed oo ku aragtaana ayada ku caashaqaysa marka ma dumarkan maxaad kaga baahan tahay ma wax kale sheegatay nin weyn ugaasata maxaa ka qaldan deedna wuxuu yiri okay haye waxaad rahan iyo siinaysan caruurtiina halkan keenaysan intay joogayaan ilaa aad ka soo celinaysaan xoolii aad qaadateen deedna Abu Naila wuxuu yiri warniyahow si hadaan yeelno caruurteen way weynaanayaan deedna hadhow waxa lagu oranayaa hadda ka hor baa waxa lagu dhigay rahan muxuu ahay raashin la cuno iyo wax la cuno rahan lagu dhigay miyaad u dhigantaa adigu ilaa intaas oo muxuu ahay kiilo raashin mooyay wax kale miyaad u dhigantaa saas baa lagu oranayaa waa lagu ceebaysanaya hadhow markay weynaadaan laakiin waxaan rahan ku siinaynaa hubkeena ayaan rahan ku siinayna marka ayaga ah saxaabadani hub ma wataan si aysan ninkan shaki u gelin marka sababtay hub aan ku keenayna ay u leeyihiin waxa weeye maadaama reer Bani Nadir ninkan ku dhex jiro si ay hadhow markay ninkan dilayaan ay hubka markay soo qaataan aan looga shakin oo aan loo oran nimankan hubka wata xagee u socdaan si daraadid ayay shardiga asaga u keensadeen inay rahan ka dhigaan hubkooda dadna wuxuu yiri wallahi xilli dagaal baa lagu jiraaye hub ma diiday waa ongolahay inaad rahan iyo siisaan hubkiina okay waa la ballamay marka maalin weeye caawa inay hubka keenaan ayaa lagu ballamay sida ayaan kaga soo laabteen rasuulka ay u yimaadeen way u sheegeen arrinta ayada qorshe inuu meel fiican marayo deedna habeenkii ayaa la gaaray cashii ayaa la dukaday markii cashii la dukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii waa ay bixeen ayagoo 5 ah Abu Naila Maxamed Maslama Abbad ibn Busr iyo saxaabi la yiraahdo Al-Harith ibn Aws iyo saxaabi kale 5 ay ku baxeen hubkoodana waa ay qaateen rasuulkuna waa uu sagootiyay oo ilaa xabaalaha Baqiicul Qarqad ayuu la sii socday deedna wuxuu yiri ilaahay garabkooda ahaa socdana mayo sida ay ku soo dhaqaaqeen xillin habeena wasaq dhaxa ayaa waxa ay u yimaadeen ninkii Kacb ibn Ashraf qalcadiisa ay yimaadeen Kacb marka waa aroos gabar carbeed baa u joogta
xaaladdu waa isugu toosan tahay kama qasna deedna Abu Naa'il ayaa u dhawaaqay wuxuu yiri kacbow waa Abu Naa'il iyo Maxamed Maslama soo dig markuu intaa yiri ayuu u dhawaaqay waraayay haddaan idin soo degayaa deedna islaantiisa ayaa waxay tiri waa ay dadkan dhawaaqay war xilligan ma la soo dhawaaqa xilligan xagaad u baxaysa ma waan baxayaa buu yiri waa Maxamed Maslama oo iyo saaxiibkay ayo walaalkay Abu Naa'il oo isku naas nuune wallahi Abu Naa'il haddaan hurda yaxta hurda iga kicin maayo war waxay tiri nin dagaalyahan tahay kumana haboona ninka dagaalyahanka oo adoo kala inuu xilligan oo kala baxo bixiniyo joog ninkan hadii khayr wadan maalin bay ku imaan lahaayeen hadaqaaqin naag musiiba ayay ahayd oo soo guursaday ninkani deedna waxa uu yiri war ninkani waa walaalkay Abu Naa'il hadduu ii yimaado inuu hurdayana wallahi uusan hurdada iga kicinaynin kana waa Maxamed Maslama waana ballansanahay inay caaw xilligan alaabi keenan ana ballamiyay nimankan marka waan u baxaya wallahi waxaan maqlayaa bay tiri islaam musiiba bay ahayd wallahi waxay tiri waxaan maqlayaa cod dhiig ka daaya ayaan maqlayaa ee niyo ha bixin yaani dumarka waxa la yiraahdaa markay cabsi timaado way ka dareen badan yihiin ragga horgu markay cabsi timaado inta badan qalbigooda adag dareen badan ma laakiin dumarku markay cabsi timaado abay xaliima waa ka dhigdheerta waana ka dareen badan waxay tiri أسمع صوتا يقطر منه الدم والله عضبان مغلابة تريد كدايو إني وهبحن كدمنا مدام راسي هاي إنه رجعنا مدي ستصيع وغصب مركب حوري لو دعي الفتى إلى طعنة بالليل لا أجاب ورنك واسك هدي لو يرور حتى دلكي سهبين مذو وبحي يعني inay iga jiifo teedna sidii ayuu ku soo baxay markuu soo baxay ninkani waa dagaalyahan soo inta islaanta ku yiri hadana qalabkiisa dagaalka sheeftiisa ayuu la soo baxay waxaan uu soo xirtay qalabkii dagaalka iyo abuurbiradii soo xirtay banaanka ayuu soo baxay marka saxaabadii ayuu u yimid Maxamed Maslama iyo Abu Naa'il iyo saxaabadii kale wala marxabeeyay xabadkii galshay waa in loo muujiyo ninkan in xaalku caadi yahay leewa seeftiisa wata hubkiisa wata hadii seef lagu soo boodo asna waa dagaalyahan meeshana reer Bariinadir iyo qalcadii baa ku wada yaala xaaladdu way xumaanaysaa marka waa in ninkan loo furo jawiga caadi ah markuu iskala dhigana ayar laga adeegto teedna saxaabadii waa ay marxabeeyay warniyo xaalka warba markii daba Abu Naa'il wuxuu yiri ma sha Allah war xay tacaawo kala catarkan oo kale waligeey ma aanan arag war araf badnidaaniyo ma anaba in dhaweed ba catarkan oo kale maba arag bay Maxamed Maslama ayaa wuxuu yiri warniyo ma fasaxdii inaan ku shumiyo horta ayar maan socono yiri qalcad inay ka fogeeyaan ayay dooneen sida daraadeed waxay yiraahdeen ayar maanu si shaakadu ay u macaato oo dayax waa 14aad waa dayax qalaal oo dhaxbar halka ayuu joogaa adduunkan wada iftiin waa waxay yiraahdeen ma ayar aynu ku socono tog liiraado shacab al-ajuus oo asaga agtiis ku yileeyeen man ayar ku socono si waxa way shaakadu noogu macaanaato ayana Mariya ayuu yiri sidii ayaana ay sida togi ugu dhaqaaqeen saa markii loo socday Maxamed Maslama wuxuu yiri ma fasaxdid inaan madaxaaga shumiyo catarkan oo kale waligeey ma arag warniyo araf badnida kacab nasr markaas uu yiri sideen arfayn buu yiri waxaan aroosay yiri gabadha carbeed gabarta ugu carafta badneed ayaan aroosay marka sideen arfayn maxaa ka qaldanay Maxamed Maslama wuxuu warniyo fasaxniyo catarkan aan san ka saarto san macquul ma waaba sanadkan oo dhamaba arag wax saan carfay deedna wuxuu wad fasaxan tahay Maxamed Maslama oo ku soo dhawaaday madaxa ayuu sanka ayuu ku jiiday لا إله warkanoo kale wali lama arag catarkaanoo kale indhaweed caadi maaha niyo mar labaad ma fasaxdid soo ka dherg caaw dhan isaga laabo mar labaad buu ku laabtay gacmiisa ayuu qaatay madaxa ayuu saa u galay ninkan nin madax weyn oo wuxuu ahaa timahu ilaa garbaha ay joogan ayuu carabti hore dad timaha deesta ayaa carabti mar saddexaad ayuu ku laabtay haddana wax shumaniyo iska dhigay deedna labadii gacmihiis ayuu timihiis intuu dalaq siiyay ayuu dhab yiri kadibna waa isku soo jiiday kadibna wuxuu yiri duunakum caduwala war cadawga Ilaahay dila saxaabadii baa afartii kale ayaa seef la dhacday ninkii asaga laakiin seefihi hadii la dhacaba ninkan waxba kama deeqaanba waaba waxba ma gaarsin ilaa wuxuu wataa abuurbireed ayuu korka dhan u xiran oo seefuba ku dhici mayso seefta xataa saxaabi kale oo Harith ibn Aws ayay dhaawacday teedna saxaabiga uu hayo Maxamed Maslama ayuu wax ka dhigtay gaashaan saxaabadii maadaama seef ku soo ridayaan oo seef lagu soo ridayo gaashaan buu ka dhigtay saxaabigii ayuu isaga dhigaya wax saal la soo jijiidaba Maxamed Maslama wuxuu yiri waxaan xusuustay inaan toore xirna ayaan xusuustay ayuu tooreed intaan la soo baxay weeraan hoos ayar ka siiyo halka madhirka baa intaan ka galsheen hoos iyo kaadi mareenkan u daadijiyay markaasaan banaanka waxaan keenay wari oo ku jirtiisii dhan baan soo yaaciyay ninka asaga ay Kacab ibn Ashraf ilaa uu dhawaaqay sidii neef lo ah ay u qayliyay waa qayladiisii oo yiri qalcadihii difaaciyay reer Bariinadir u dhisnaayo dhan baa laga maqlay markaas qalcad kasto ayaa dab laga shiday waa xilli habeen ilaa moog balaayadan dhacday maxay tay dhahayn ninkaas dib wada shideen ninka ayaga halka ayay saxaabadii Maxamed Maslama iyo ragii la socday ay kaga takhaluseen ninkii Kacab ibn Ashraf ahaa nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay kaga raaxeeyeen oo halka ay ku dileen ninkii asaga ahaa gabiyaga ay balaayada carabkiisu ay ka joogi waayeen muslimiintu nabiguna oo aad u dhibsaday hadaba daawadayaal saxaabadii waa ay soo laabteen waxaana dhaawaca saxaabi al-Harith ibn Aws ahaa waxay soo dhaxmareen gurihii Yuhuud ay soo dhaxmarmareen waxaana yimaadeen magaalada ay ku soo laabteen nabiga sallallahu alayhi wasallam oo salaadu leyl u taagan oo salaadu kanaya ay u yimaadeen markay u yimaadeenna waa ay takbiirsadeen oo Allahu akbar ayay wada yiraahdeen rasuulkuna waa ku farxay waxaana uu yiri aflahatul wujuh wajiyadu han nuuraan halibanaan
ayuu rasuulku halka ayuu rasuulku ku marxabeeyay waana u wada duceeyay sida ayaa lagu dilay ninkii Kacab ibn Ashraf ahaa oo sida ayaa muslimiintu ay kaga takhaluseen dhibaatadiisii subaxii markii waagi ay bariyay ayay yahuudi ibn Nadir waxay aragtay ninkii ugaaskooda ahaa oo meeshan dhiigiisa dhex rafanayo xalay laga adeegtay deedna way soo baxeen oo rasuulka ay u yimaadeen waxay yiraahdeen maxamedow ninkii waaskeena Kacab ibn Ashraf ahaa qutila qiila sikidiisa oo khiyaana ayaa lagu dilay deedna rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri wad ogaadeen buu inaan ballan ku jirnay deedna ninkani ballantii buu ka baxay waa uu nacaayay waad ogtihiin waxa uu noo geystay carabkiisa inaan ka joogo weyn adinkuba waad ogeydeen nimanyo haddii uu sida dadka asaga la midka ah aamus lahayn annaguna waxa maana yeelnaa laakiin haddii waxa uu ku dhaqmay oo kale timid adinkeeda kamid uu ku dhaqmo wadada uu maray ayaad maraysaan yahuudi kale ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u digay deedna waa isugu yeeray mar labaad ayaana uu ka qoray warqad kale oo ballan labaad ballantii ayuu ku cusboonaysiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida ayaana ay ku laabteen xilliga wixii ka dambeeyana yahuudi magaalada ku jirtay waa ay baqeen oo cid hadasha afkay baa joogta gab cid hadasha ayaa la waayay oo dhamaantood waa ay cabsadeen oo ay aamuseen wada intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeena maanta oo ku saabsanaa dilkii muslimiintu ay dileen iyo saxaabadu ninkii shaydaanka ahaa ee yahuudiga ahaa xaggana carabta ahaa ee Kacab ibn Ashraf haddii aad halkan soo gaartay waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalka daawatay la soco muuqaalka xigo janalka subscribe saar assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh